maanta oo ah 18 May waxaa mar kale loo dareeray wareegga labaad ee doorashada ku celiska ah ee wadanka Turkiga aroortii hore ee saaka ayay bilaabantay codayntu waxaana doorashada madaxtinimada wadanka Turkiga si weyn ugu loolamaya maanta madaxweynaha haatan talada haya Recep Tayyip Erdogan iyo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu in ka badan 65 milyan oo qof ayaa codaynaysa maanta kuwaas oo kala saaraya Erdogan iyo Kemal. Haddaba waa sidee rajada Erdogan ee maanta tan iyo markii uu 14 bishan galay Erdogan doorashadii ugu adkayd oo ay lix xisbi u midoobeen inay meesha ka saaraan Erdogan waase ay jiiri waayeen. sidoo kale musharaxii kaalinta saddexaad galay doorashadii 14 bishan laga qabtay wadanka Turkiga Sinan Ogan ayaa si buuxda u garab taagan madaxweyne Erdogan waxaana muuqata inaan laga adkaan karin Erdogan taasi oo farxad siinaysa muslimiinta oo si weyn u taageersan hogaamiyaha Erdogan. sidoo kale wadamada reer galbeedka oo si weyn u taageersan musharaxa isbahaysiga mucaaradka Kemal ayaa haatan ka sii quusanaya inay ka adkaadaan Erdogan. sidoo kale wadamada reer galbeedka ayaa bedelay fikirkoodii hore ayagoo haatan muujinaya inay macquul tahay inuu soo laaban karo Erdogan. inta badan dadweynaha wadanka Turkiga ayaa dhiibtay codadkooda waxaana codaynta la soo xiri doonaa 5 galabnimo ee maanta. sidoo kale waxyaabaha kor u sii qaadaya rajada Erdogan waxaa ka mid ah inuu dhawaan ku guuleystay xubnaha ugu badan ee baarlamaanka wadanka Turkiga waxaana uu madaxweyne Erdogan haystaa aqlabiyadda baarlamaanka wadanka Turkiga taasi oo sii xoojinaysa rajadiisa dib u doorashada. waxaana uu Erdogan u muuqdaa hogaamiye ka adkaaday wadamada reer galbeedka oo ugu horeeyo wadanka Mareykanka oo si weyn cadow ugu ah madaxweyne Erdogan taageersanna hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ninka lagu magacaabo Kemal. waxaana muuqata inay saqiirtay riyadii wadamada reer galbeedka ee doorashada madaxtinimada wadanka Turkiga. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada wadanka Turkiga ka socota.